bismillaah maanta bulshada rayidka ayaa waxay noogu yimaadeen aan ku casuumnay inay arkaan hawsha imtixaan sixidda maadaama hawsha aan ka shaqaynayno ay tahay arrin bulshadu ama shaqo bulshadu ay leedahay ay tahay waxaan ugu talagalnay inay bulshadu goobjoog ay ka noqdaan qayb ka noqdaan ka warhayaan xog ogaal u noqdaan hanaanka iyo heerarka oo mara sixitaanka imtixaanku taasa marka waxay keentay inaan ku casuumno bulshada rayidka ayaguna ay arkaan indhahooda ku arkaan dabcan si loo dhiso kalsoonida bulshada kalsoonida ardada kalsoonida macallimiinta kalsoonida waalidiinta loo dhiso ayaan waxaan sameynay casuumaadaas indhahoodayna ku arkeen aaday ugu riyaaqeen anagoo ku kalsooneen hawshaan qabanayna ayaan haddana waxaan isla garanay inay muhiim tahay inay bulshadu ay xog ogaal u noqdaan shaqada imtixaanaadka hanaanka imtixaanaadka oo maro sixitaankiisa iyo daahfurnaanta iyo muxuu ahaa cadaaladda iyo juhdiga lagu bixiyo sixitaanka imtixaanka taas ayuu ujeedadu ahaa maanta casuumaadan iyo kormeerka ay ku yimaadeen bulshada rayidku dabcan waana warbixinay ayaguna indhahooda wax ku arkeen aadayna ugu riyaaqeen wayna bogaadiyeen shaqada culus ee socoto aadaa mahadsantiin